بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين لما أنا أصحابتك وحرن جانلكا بليز سبسكرايب صار ما أنت برنامج كانوا حكوا سابسينها بغركي مسلم بليونير كأها منسى موسى أساسها شركة أمازون جيف بيسوف أيا هذا قفك وتاجر سنة دونك سيدا لو قاحي ليسك بليونير هذا سنة كان لو كنت وين سغالكا أسبوعا شاعيين هيدا فوربس هانتيدي قيمة هذا waxaa lagu qiyaasay 132 bilyan oo dollarka Mareykanka oo u dhiganta 99 bilyan oo gani laakiin Jeff wuxuu noqonayaa qof lacag yar haysta marka la barbar dhigo ninkii ugu taajirsanaa ee soo maray dunida ninkaasi wuxuu ahaa Mansa Musa waana boqorkii qarnigii 14aad maamuli jiray galbeedka Afrika hantidiisu aad bay u badneed waxaana ku tiirsanaa guud ahaan dhaqaalaha dalka uu ku taagnaa dhaqaalaha Mansa uu haystay aad buu u ballaarnaa lacagihiisuna waxay yeeleen meel walba taasina waxay xitaa sababtay in aan la xisaabin karin inta tiro ahaan ahayd lacagtiisa sidoo kale qoraal lagu magacaabo Jacob Davison ayaa buug sanadkii 2015 ka qoray taariikhda boqorka reer Afrika ahaa ee yidhi Mansa Musa wuxuu ka taajirsanaa qof walba oo niyad ku soo dhici kara sanadkii 2012 website laga leeyahay Mareykanka oo lagu sheekeeyay dadka taajiriinta ah ayaa hantidiisa uu Mansa Musa haystay ku qiyaasay 400 bilyan oo dollarka Mareykanka ah balse dadka ku xeel dheer taariikhda dhaqaalaha waxay intooda badan isku raaceen in boqorkaas hantidiisa tiro sax ah lagu jaangoyn karin Mansa Musa wuxuu qoys boqortooy ka dhashay sanadkii 1280kii walaalkiis oo lagu magacaabi jiray Mansa Abubakar wuxuu boqortooyada maamulayay ilaa sanadkii 1312 Abubakar wuxuu boqortooyada maamulkeeda ugu dagay si uu aad safar go'aan ku gaaray sida laga soo xigtay taariikhankii qarnigii 14aad ee lagu magacaabi jiray Shibab al-Umari oo u dhashay Suuriya Abubakar wuxuu jeclaystay inuu ogaado wax ka dambeeyay badweynta Atlantic safarkiisa wuxuu ka koobnaa 2000 oo maraakiib iyo kumanaan ruux oo isugu jira rag dumar iyo adoomo way shiraacdeen laakiin weligood dib uma soo laabanin taariikhyahanada qaar sida Ivan van Sermita oo u dhashay Mareykanka waxay sheegeen in safarkaasi uu gaaray koonfurta America laakiin taas wax cadeyn ah looma hayo si kastaba ha ahaatee Mansa Musa ayaa dhaxlay boqortooyadii uu ka tagay walaalkiis markii uu xukunka la wareegay waxaa si weyn u balaartay xukuumadii boqortooyada waxa la helay kheyraad fara badan oo dhab ah oo dahab ah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا سبسكرايب صار channel ka hadii aad ku cusub tahay